dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan leeyahay la soo garab istaaga taageerihiina wax ku nahnay garoonka inta imaan karta ha imaado kuwan garoonka imaan karin social media naga soo taageeraan insha Allah guulaan rajeynayna insha Allah ummadda Soomaaliyeed waxa uu baaqaya inay meel ay joogan soo taageeraan meel walba ay joogan maxay maanta waxaan rajeynaa insha Allah hadduu leeyahay koobkan anagoo daafacnay Champions waxaan rajeynaa inaan soo qaadno meel fiican ka gaarno maanta waxaan soconaa safar oo u jahana dalka Uganda insha Allah waxaan rajeynaa inaan koob soo qaadno insha Allah taageerayaasha waxa uu baaqayna dhiirgelin waxaan rajeynaa taageeraha inaan soo duceyno rajeynaa insha Allah inaan soo guuleysano koob soo qaadno rajeynaa insha Allah ilaahay marka koobaad maal iska leh marka labaad meeshan waxa uga mid celinaa xiriirka Soomaaliya kubadda cagta tan kaleeta waxa ma hadda dhan u sugnaatay macallimiinteena oo la soo diyaariyeen inta Soomaaliyeed tan kaleeta anaka waxa u soconaa maanta dalka Uganda oo aan uga qayb gali doono tartanka under 17ka insha Allah waxaan rajeynaynaa koobkaas inaan meel fiican ka gaarno sidii sanadkii hore u qaadeen walaalaheena anaka u qaadno insha Allah waxaana ka leeyahay dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan leeyahay la soo garab istaaga taageerihiina wax ku nahnay garoonka inta imaan karta ha imaado kuwan garoonka imaan karin social media naga soo taageeraan insha Allah guulaan rajeynayna insha Allah xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed noo suurtageliyay in aan saake si qurux badan u soo safarno waxaa meesha ugu mahadcelinayaa wasiirka ciyaaraha xildhibaan Maxamed Barre asina waxaan leenahay wasiir shaqooyinka aad soo qabatay aad aan ugu qanacnay maanta waxaan nahay safar Soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa bulshada Soomaaliyeed oo aan ka dhalanay inay noo soo duceeyaan tartankan anaga haysan kii hore kan insha Allah inaan keenna rajaynaa duleena